asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadgelyo iyo naxariis dushiina ha ahaato meel walba adduunka ka joogtaan. kusoo dhowaada kanaalkeena baadidoon. muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay wakhtiga ugu muhiimsan cimriga qofka biniaadamka. wakhtigaas waxaa la isku raacay inuu yahay wakhtiga dhalinyaronimada. muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa muhiimadda ay leedahay dhalinyaronimadu, talooyin aan soo xulnay oo lagula taliyey dhalinyarada, iyo dadka ay dhalinyaradu ku dayan karaan. kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta. qaybta koowaad ee muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa muhiimadda dhalinyaronimada. xilliga dhalinyaronimadu waa marka uu qofku jiro da ahaan 15 ilaa 35 sano. waa laba meelood meel ka mid ah cimrigeena guud. waa xilli aan haysano nimcooyin aad u fara badan, waxaana ka mid ah nimcooyinkaas uu alla siiyey dhalinyarada: caafimaadka, awoodda jireed iyo firfircoonida, firaaqada, xanaanada iyo taageerada waalidka, tan dowladaha ama tan bulshada guud. nimcooyinkan uu alla siiyey dhalinyarada dadka waaweyni lama ay wadaagaan. waxaa xaqiiqo ah in qof walba oo hadda weyn uu soo maray xilligan, uuna soo helay qaar ka mid ah ama dhammaanba galadahaas uu alle subxaana watacaala bixiyo. waxyaalahaas ama galadahaas uu alle bixiyey ayaa waxay ka dhigayaan xilligan dhalinyaronimada mid aad muhiim u ah. waxyaalaha kale ee caddaynaya muhiimadda xilligan dhalinyaronimada waxaa ka mid ah xadiis saxiix ah oo uu saxaabigii ibnu cumar radiallahu canhu uu ka wariyey nabigeeni maxamed sallallahu calayhi wasalam. xadiisku waxa uu macno ahaan noqonayaa: maalinta aakhiro qofna kama tegayo madasha xisaabta ilaa laga weydiiyo 4 waxyaalood oo kale ah cimrigiisa, dhalinyaronimadiisii meesha uu ku bixiyey, maalkiisa halka uu ka helay iyo halka uu ku bixiyey, iyo aqoontiisa ama cilmigiisa. xadiidkan waxaan ka fahmaynaa in iyada oo cimriga qofka si guud loo weydiiyey, haddana si gaar ah loo weydiin doono dhalinyaronimadiisii. taasi waxay muujinaysaa muhiimadda dhalinyaronimada. sidoo kale waxaa jira xadiid kale oo isna uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: ka faa'iidayso 5 arrimood inta aysan kugu imaan 5 arrimood oo kale. ka faa'iidayso dhalinyaronimada inta aadan gaboobin. ka faa'iidayso caafimaadka inta aadan xanuunsan. ka faa'iidayso dhaqaalahaada inta aadan buusaaradoobin. ka faa'iidayso firaaqada ama jaaniska aad haysid ka hor inta aadan mashquulin. iyo midda ugu dambayso ah: ka faa'iidayso noloshaada ka hor inta aadan geeriyoon. xadiidkan waxaa isagana ka fahmi karnaa muhiimadda ay leedahay dhalinyaronimadu, maadaama ay tahay arrinta koowaad ee uu xadiis xusayo. markaa eegno dhinaca kale, murtida iyo mahmahda soomaalida qaybo ka mid ah ayaa iyaguna muujinaya muhiimadda dhalinyaronimada. waxaana ka mid ah: dhul waa dhalinyaro, oo ah mahmaha soomaaliyeed oo ina tusaysa in tirada dadkeenna ugu badan uguna muhiimsan ay tahay dhalinyarada. in dharaaro soo jiray dhib baa laga waraystaa. mahmahdan waxaa ka baranaynaa in wakhtigu uu qofku helo khibradda ugu badan ay tahay xilliga dhalinyaronimadiisa, waayo waa xilliga uu qofku ku jiro tacabka iyo dadaalka ugu badan. waana laba meelood meel ka mid a cimriga qofka oo dhan. 20 jir intuu geed ka boodo ayuu talo ka boodaa. qof walba oo dhalinyaro ah mahmahdan ugu yaraan wuu maqlay. waxayna ina baraysaa firfircoonida dhalinyarada. sidoo kale waxay ina baraysaa in go'aan qaadashadu ay leedahay hab loo maro ee aan la iska qaadan. fiiro gaar ah, intaan barnaamijkan diyaarinayay aad ayay iigu adkaatay in aan helo murti iyo mahmahyo soomaaliyeed oo dhalinyarada u gaar ah. waxaas aad ugu mahad celinayaa walaalihii abwaanadii aan weydiiyey iyo iisoo jawaabay dhammaantood. aan adigaba ku weydiiye, hoos noogu sheeg murti iyo mahmahyo dhalinyarada khuseeya haddii aad garanaysid. qaybta labaad ee muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa talooyin ku socda dhalinyarada. talo waa mar aad gaari weydo iyo mar aad garan weydo. qofku waxa uu talo qaataa keliya marka uu doonayo xal rasmi ah oo uu rabo inuu arrin ka guul gaaro. haddaba si aan xilligan muhiimka ah uga wada faa'iidaysano, waxaa inoo soo xulay ama inoo soo dooray talooyin aan u arkay inay yihiin kuwo aad muhiim u ah, sida dadka waaweyn ay inagula taliyaan oo kale. maanta oran mayno balwad ha yeelanin, xumaan ha samaynin, wax ha xadin, wax barow, iyo waxyaalaha kale ee caanka ah inta badan ay dadka waaweyn ka hadlaan. waxaan doonayaa in aan qaab dhalinyaronimo ku jirto idinla wadaago talooyin kuwaas oo aad noo wada anfici doona. talooyinka aan idiin soo xulay waxaa ka mid ah: 1. ixtiraam dadka oo dhan. haddii aad rabto in lagu ixtiraamo, ugu horreyn adigu dadka ixtiraam. waalidku waxay ilmaha ku yiraahdaan ixtiraam dadka kaa weyn. waxaasay ilmuhu ogaadaan marka ay koraan in ixtiraamka dadka oo dhan ay mudan yihiin oo uusan gaar u ahayn dad khaas ah. haddaba waxaad tahay qof dhalinyaro ah oo ku hawlan horumarinta noloshiisa. waxaa khasab ah in dad badan aad la dhaqmi doontid. mar
markaad tahay qof ixtiraama dadka adigana waa lagu ixtiraami doonaa. taasna waa qayb ka mid ah guulahaaga oo maanta ma sahlana qof in la iska ixtiraamo. talada labaad waxaa waaye naftaada xushmee. naftaadu waa mid muhiim ah. waxaa lagugula talinayaa inaad xushmayso oo aad qadariso, sababtoo ah markaad tahay qof naftiisa xushmaynaya waxaad mar walba ku mashquulaysaa horumarinteeda, sida in aad wax cusub barato, waxaad ka ilaalinaysaa waxyaalaha dhibaya, uma quuraysid khataraha oo waad la baxsanaysaa ama badbaadinaysaa naftaada. qofka dhalinyarada ah ee naftiisa xushmeeya waxa uu ka badbaadaa in la isticmaalo ama loo adeegsado meelo khaldan oo sharaf darro iyo mustaqbal xumo ay kasoo gaari karto. talada saddexaad ee khubaradu ay dhalinyarada kula talinayaan waxaa ka mid ah qiro khaladkaaga oo horey uga soco. qirasho markii aan maqalno waxaa laga yaabaa in nafteennu ay difaac gasho oo aan isku malayno inaan maxkamad joogno, balse ujeedkaygu waa uu ka muhiimsan yahay midaan, waana uu ka weyn yahay. qof walba khalad wuu geli karaa, waxaase dadka ugu fiican kuwa garta khaladkooda, cashir ka barta, ka laabta, horeyna uga socda. maanta waa maalinkii aad khaladkaaga u arki lahayd cashir aad nasixi lahayd. naftaada u sheeg waxa aad khaladay. waa caadi inaad khalad samayso, balse waa ilbaxnimo iyo mid keenaysa horumar in aad garato wixii aad khaladay aad nasaxdo. waa sadoqonnimo inaad inkirto ama dafirto khaladkaaga. fiiro gaar ah, muhiim ma ahan in dadku ay ogaadaan khaladkaada, keliya dadka uu khuseeyo ayaad la wadaagi kartaa wixii aad khaladay iyo qaabka aad u saxday. dareensii in aad tahay qof tallaabadiisa la socda oo iska warqaba. talada afaraad, wakhtigaada ugu badan ku bixi wax soo saarka. dhalinyaradu marna ma waayaan meel ay wakhtigooda ku bixiyaan. haddaba taladan lagu siinayo waxa ay tahay in maanta kadib aad ka fikirto meesha aad wakhtigaada ku bixinaysid, ha noqoto meel ay wax kaa soo gelayaan. tusaale, haddii aad tahay ganacsade, wakhtigaada ugu badan ku bixi horumarinta ganacsigaada, sida in aad adeeg cusub bulshada u keentid kadib marka aad ogaatid in ay bulshadu baahi u qabto. taasi horumar badan ayay ku gaarsiinaysaa. awood uma lihin inaan wakhtiga istaajino, balse waxaa awood u leenahay in aan ka faa'iidaysano oo aan danaheena khaaska ah ku qabsano. wakhtigaada ugu badan waxaa xaq u leh naftaada iyo horumarinteeda ee u hur. talada shanaad, marka go-aanka ugu saxan qaado. nolosha qofka bini'aadamka ah waxaa soo mara xilliyo iyo marxalado kala duwan, kuwaas oo go'aan qaadashada ka dhigaya mid daruuri ah. go'aan walba oo la qaadanayo wuxuu noqdaa laba mid mid iska caadi ah iyo midka ugu fiican go'aamada. go'aanka aan gaarayno waxaan ku salaynaa xogta aan haysano mar walba. haddii aad rabto in aad arrin go'aan ka gaartid ama inaad arrin go'aan ku gaartid, marka hore ururso xogta aad u baahan tahay oo dhan, sida go'aamada macquulka ah oo dhan. go'aan walba ka fiiri dhinaca wanaagsan iyo kan aan wanaagsanayn, kadib qaado go'aanka wanaagiisu uu badan yahay xumaantiisuna ay yar tahay. waa muhiim halkaa inaad fahantid. go'aanka wanaagiisu badan yahay xumaantiisuna ay yar tahay. suurtagal maahan maanta inaad adduunkan ka heshid wax wada wanaag ah oo xoogaa dhaliil yar aan lahayn, laakiin wax walba maadaama ay dhaliil yeelanayaan, waxyaalaha dhaliisha yar leh doorbid inta badan. go'aankan insha allah wuxuu noqon doonaa midkii ugu wanaagsanaa ee aad abad gaartay. wakhtiga dhalinyarnimada haddii aad isbartid qaadashada go'aamada saxan, waxaad cagta saari doontaa dariiqa horumarka iyo guusha alle idankiis. talada xigta ee khubaradu ay dhalinyarada kula talinayaan, wanaaji oo ilaali xiriirka kaala dhexeeya qoyskaada iyo asxaabtaada. qof walba oo inaga mid ah wuxuu alle ka beeray qoys isaga u gaar ah. sidoo kale wuxuu leeyahay oo uu samaystaa saaxiibo welibana aad ugu dhow. inaad ilaaliso aadna hormariso xiriirka kaala dhexeeya dadkan waxay muhiim u tahay noloshaada. xiriirka koowaad ee ay khasabka ugu tahay inaad horumariso waa midka kaala dhexeeya alla subxaana wa tacaala. kan labaadna waa kan qoyska, halka kan saddexaad uu noqonayo kan asxaabta. ugu dambeynna xiriirka xiga uu noqonayo midka bulshada guud kaala dhexeeya. mid walba oo xiriiradaas ka mid ah goonidiisa ayuu horumarin ugu baahan yahay. midka qoyska iyo asxaabtuna waa mid muhiim ah, sababtoo ah dadkaani waxay kuu noqon karaan garab aad isku halayn karto oo ku caawin kara xilliyada aad u baahan tahay, ama culays ku saaran xilli walba oo hoos kuu celinaya. ogow in dadkani ay kuugu baahan yihiin sida aad ugu baahan tahay oo kale ama ka badan. qaybta ugu dambeysa muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa dhalinyaradu dadkee ayay ku dayan karaan. maxaa qof ugu dayanaynaa? horta waa su-aal muhiima. qaabkee ayaase qof loogu daydaa? maadaama aan nahay dhalinyaro aana ku jirno dadaal badan oo la xiriira horumarinta nolosheenna iyo tan bulshadeenna, waxa aan la kulannaa caqabado badan. waxa aan u baahan
baahannahay inaan helno dad tusaale ah oo aan ku dayano. Inta aadan qof ku dayan ka hor waxaan u baahannahay inaan ogaano inuu Alle subxaanahu watacaala dad kala duwan abuuray, qof walbana uu leeyahay shakhsiyad, garaad, caqli iyo mabda' u gaara qofkaas. Adigu waxaad leedahay shakhsiyad, mabda' iyo garaad kuu gaar ah. Sidoo kale qofka aad ku dayanayso isaguna intoo kale ayuu gaar u leeyahay. waxa ugu muhiimsan ee aan dadka tusaalaha ah uga dayanayno waa in aan qaadano cashirada ama khibradaha ay ka heleen nolosha. Tusaale ahaan, kubadda cagta ayaad jeceshahay inaad heer ka gaarto. waxaad fiirinaysaa dadka heerka ka gaaray. waxaad baranaysaa khibradaha ay adeegsadaan ama khidadaha ay adeegsadaan ee ka dhigay kuwo ka duwan ciyaartoyda kale. qaabka ay u xalleeyaan dhibaatooyinka kasoo wajaha dhinaca kubadda cagta iyo qaabka ay dadkooda ula dhaqmaan. balse waxba kuusoo kordhin mayso in aad kaga dayato qaabka timo jarashada, labiska ama qaabka ay u dabaaldegaan marka ay gool dhaliyaan. sababtoo ah waxyaalahaas waxay qeexayaan shakhsiyadooda, garaadkooda iyo mabda'ooda iyaga u gaarka ah. adiguna waa in aad kuwo kuu gaar ah soo bandhigto ee ma ahan in aad koobi soconayo. Messi Ronaldo kuma daydo, sidoo kale Ronaldo Messi kuma daydo, sababtoo ah shakhsiyadooda kala duwan. waa laga in xirfadaha isaga daydaan. marka adigana uma baahnid inaad qof ku dayatid dhinaca maaragta shakhsiyadda. waa inaad uga dayataa qaabkay kubadda u laadaan. waa uga dayan kartaa qaabkay u gambiyaan marka ay rabaan inay gambiyaan. laakiin timo jaridda, qaabkay u celebrate gareeyaan, agshimada ay bixiyaan, waxaas waxay sheegayaan shakhsiyadooda, garaadkooda iyo wax ayaga u gaar ah. adigana intoo kale ayaa kuu gaar oo aad leedahay. wax qiimo ah yeelan maysid haddii aad lumisid shakhsiyadaada, oo waxaad noqonaysaa qof dhunsan ama qof aan baday, maadaama aad ka tagtay sumadii waxaa ingiliishka lagu yidhaahdo identity, taas oo lagu garanayay wiilka ama gabadha dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed yay ku dayan karaan isaga oo aan luminayn qiimihiisa u gaarka ah. si aan jawaab ugu helno su-aashan, laba arrimood ila fahan. kow, ila fahan in dadka aan ku dayanayno ay laba kala yihiin: qof aan doonayno khibradiisa iyo xirfadiisa sida ciyaartooy, hogaamiye ama ganacsade. waxaan rabnaa inaan ka barano tijaabooyinka ay isticmaaleen, iyo qof aan uga dayanayno qiimihiisa qof ahaaneed sida saxaabi, sida sheekh, sida aqoonyahan. dadka aan xirfad ahaan ku dayanaysid waa taqaanaa. haddiise aadan aqoon, waa dadka guulaha ugu badan adduunka ka gaaray wax aad adiguna rabto inaad guul ka gaartid. baar oo baro sirta ay dadkaas isticmaaleen. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhalinyarada kula taliyay in ay shakhsiyaadkan soo socda uga daydaan qiimahooda shakhsiyeed. sababta aan isleeyahay dadkan waa ugu dayan karnaana waxaa waaye waxay leeyihiin shakhsiyad annagana qiimo noo yeelayso. sidoo kale dadkan waa dad dhintay, maanta ma noolo, oo kama cabsanayno in ay na fitneeyaan. qofka koowaad ee tusaalaha u ah dhalinyarada waa Muscab ibnu Cumayr radiallahu canhu. wuxuu ahaa daacigii nebiga sallallahu calayhi wasalam ee magaalada Madiina, wuxuuna ahaa weyn dhalinyaro ah, hogaamiye ah. taariikhdu waxay u qoraysaa in saxaabigan markii la dilay la waayey mara kafan looga dhigo, oo go-iisii uu watay xitaa uu jirkiisa wada gaari waayey, ilaayo inta hore go-i laga saaray, inta dambane geed caleemihiis kafan looga dhigay. allaha ka raali noqday, saxaabigan waxaan uga dayanaynaa mabda'a uu lahaa. isagoo nolol qabow ku jiray ayuu haddana doortay noloshii adkayd ee islaamnimada, maadaama halkaas uu ka arkay deganaan iyo inay noloshii hore ka qabowdahay. saynisyahanka caanka ah ee Albert Einstein ayaa laga qoray oraah ah: nolosha degan ee sahlan ayaa ah nolosha ugu wanaagsan ee lagu noolaado. tusaalaha labaad dadka aan ku dayan karno ee uu shiikhu dhalinyarada kula taliyey waxaa ka mid ah Cali bin Abi Taalib radiallahu canhu. waxyaalaha badan oo wanaagsan ayaan uga dayan karnaa saxaabigan, laakiin muuqaalkana maanta meesha aan rabo inaan diiradda ku saaro ama waxa aan rabo inaan uga dayano waa geesinimada. Cali bin Abi Taalib wuxuu ahaa saxaabi aad geesi u ah, aadna loogu yaqaanay dagaalada iyo xeeladaha dagaaleed. tusaalaha u dambeeya oo shiikhu dhalinyarada kula taliyey waxaa waaye Usaama ibnu Zayd radiallahu canhu. waxaan uga dayan karnaa saxaabigan akhlaaqda wanaagsan iyo hogaaminta. wuxuu ahaa dhalinyaro aad u dacyar, aad u akhlaaq wanaagsan, hogaamin fiicanna lahaa. tayo intaas ka badan ayuu lahaa. si aad u ogaatid waxaan kugula talinaa inaad taariikhdiisa raadisid. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay.